بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idin ka soo salaamayaa mar kale magaalada Muqdisho xarunta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waa Cabdicasiis Xildhibaan oo idin leh marka hore habeen wanaagsan. waxaan jecelahay inaan guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan marka hore adduunyada meel kasta oo ay ka joogaan halkan aan uga hambaliyeeyo salaana uga soo diro magaalada Muqdisho. sida aad ka warqabteen maalmihii la soo dhaafay ama tagay waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho. waxaan jecelahay inaan xaaladda guud ee nololeed iyo ammaan ee ka jirta aan in yar idinkaga sheego. waa idin salaamaya gidigiin marka hore waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka gacaltooye kadib waxaan rajaynayaa inaan in yar ka iraahdo xaaladda nololeed amni ee ka jirta magaalada Muqdisho. sida aad la socotaan shalay waxay ilaamaha warbaahinta soo dhigeen dad badan oo Soomaaliyeed muuqaallo aad iyo aad looga naxo kuwaas oo ku saabsan xoolihii dhawaan laga soo celiyay dalka Sacuudi Arabiya ee la keenay maxjarkii hore looga dhoofiyay ee magaalada Muqdisho, halkaas oo aad aragteen ama la soo sawiray iyaga oo iscunaya. waxaa nasiib darro ah shacbiga Soomaaliyeedna ay og yihiin in iska daa dadkii xoolihii iscunayaan. waxaa lagu goobayaa doorasho lagu raadinayaa in boqolaal kun oo dollar lagu bixiyo si loo helo mar kale xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waa ayaan darro shacbiga Soomaaliyeed u soo hoyatay in xoolihii ay iscunayaan, shacbigiina meel ay kala maraan ay laayihiin. dhinaca ammaanka markaan tusaale ahaan usoo qaato Muqdisho waxay ka nolol wanaagsanayd ayaantii ay ka maamulayeen ama ka talinayeen hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya soo maray, gaar ahaan kuwii ugu awoodda badnaa ee soo mara muddadii burburkii dowladnimo ee Soomaaliya lagu jiray maamulka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ruux kasta oo ay rumaynaya caawa waxaan jecelahay inaan wax idinkaga sheego heerka ay gaarsiisan tahay nabadgelyo xumada ka jirta magaalada Muqdisho. dariiqyada ama laamiyada marka laga soo tago ku yaala wadooyinka magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa waxaa jirta in xitaa xaafadihii dadka rayidka ay ku noolaayeen inay dhammaantood yaalaan isbaarooyin, kuwaas oo ka turjumaya amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho. waxaa laga maarmaan ah meel kastoo adduunka ka joogtaan marka lagu daro caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka kooban tahay iyo adduunka intiisa kale, 4 sanadood kadib shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda ama banaankeeda uma fududa, uma sahlana in ay si xor ah isaga socdaalaan. halkii berigii hore qad cagaarna uu ooli jiray magaalada Muqdisho horaantii sanadihii 90-maadkii, maanta wadada ka soo baxda golaha shacbiga qaranka halka loo yaqaan ama masjidka isbahaysiga islaamka ilaa laga soo gaaro lambar 4 waxaa taala in ka badan 50 isbaaro habeen ama maalin. waxaa la soo gaaray xilligii shacbiga Soomaaliyeed ay kala dooran lahaayeen hogaamiyihii guul iyo gobonnimo u horseedi lahaa, kana saari lahaa shidada iyo colaadaha weli ka sii soconaya geyiga Soomaaliya. waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed mid ha ogaadeen, ruux 4 sanadood kaa khasaariyay waxaan idin leeyahay 4 sano kale yuusan kaaga darsanin. waa ayaan darro haysata muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay qabyaaladu madax martay ee taageerada har iyo habeen la taagan
ay u hayaan. Waxaan caawa idin xaqiijinayaa in shacbigii ay ku daaleen hogaamiyayaashii fadhiidka ahaa ee ujeedada ay markii hore u dooneen inay shacbiga Soomaaliyeed hogaamiyayaal u noqdaan ay ahayd in ay boobaan hantida guurtada iyo maguurtada ah ee ay leeyihiin. maalmihii tagay ee taariikhda gaar ahaan waxaan la hadlayaa saaxiibkay Cabdalla Buuco oo jooga magaalada Canada, dalka Canada, magaalada Toronto. waa ku salaamay. ahaan waxaan u dhowahay in ku dhow 50 sanadood. waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed mid inay ogaadaan maalmihii tagay ee taariikhda haddii xukuumad military ah ay dalka ku haysan karto xoog, waxaa shacbiga Soomaaliyeed xoog ku haysan lahaa Maxamed Siyaad Barre. haddii ciidamo shisheeye dalka lagu haysan karana waxaa ku haysan lahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. ruux ku haysan karaa ma jirto shacbiga Soomaaliyeed xoog ama qabiil ku haysan karaa ma jirto. waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin igu raacsan tihiin gudoomiyaha kooxda Qabyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xirtiisu inay guul darra u horseedeen shacbiga Soomaaliyeed. arrintaas iyada ahna aysan ahayn wax la aqbali karo. in mar kale shacbiga Soomaaliyeed wakiiladooda ay fursad u siiyaan inay dib u maamulaan 4 sano oo dambe. waxaan hubaa shacbiga Soomaaliyeed inay laga maarmaan tahay in meel kastoo aad joogtaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatoonaya ee abaaruhu ay haleeleen, halka magaalada Muqdisho laga soo sawiray xarumaha ku yaala ee ay ku jiraan xoolihii loo qaaday Sacuudi Arabiya, in iyagoo iscunaya shalay aad aragteen. waxaa soo dhow in dadka laftooda mar dhow ay iscunaan haddii xaaladda hadda lagu jiraa ay sii socoto. iyaba waa ayaan darre. ma filayo in mar kale ay guul u horseedi doonaan madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo taageerayaashiisuna mar kale ay fursad u heli doonaan inay shacbiga Soomaaliyeed sii hogaamiyaan. ayaamahaasi waa tageen. waxaan maraynaa marxalad taariikhi ah oo aan rajaynayo in shacbiga Soomaaliyeed ay heli doonaan nolol ka wanaagsan ama ka ayatiin wanaagsan tan ay horseedka ugu noqdeen madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo xirtiisa. halkaan idinkala soo hadlayo waa magaalada Muqdisho. ujeedkaygu ma ahayn inaan waxaan jirin shacbiga Soomaaliyeed u sheego, laakiin xaqiiqada cid qarin kartaa ma jirto. waxaad marar badan idaacadaha iyo laamaha warbaahinta ka maqasheen isla madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegaya in goobaha ay ka taliyaan kuwa duulaanka ku aqarnimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka ammaan badan tahay goobaha ay ka taliso dawladdu. wuxuu wax badan idaacadaha iyo laamaha warbaahinta ka sheegay in ciidamadii dawladdu ay isbaarooyin u yaalaan, baaranayaan jeebabka haweenka Soomaalida. waxaad garanaysaan halgankii shacbiga Soomaaliyeed iyo hogaamiyaashii ka horreeyay dawladda fashilka u horseeday Soomaaliya, halgankii looga saaray magaalada Muqdisho. shacbiga Soomaaliyeed cid qaldi kartaa ma jirto. waxaan rajaynayaa ruux kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu doono ama raadiyo mustaqbal ka wanaagsan ama ayatiin ka wanaagsan kan maanta shacbiga Soomaaliyeed ay horseedka ugu noqdeen. qowlaysatada xalaalaysatay xoolaha shacbiga iyo tii dawladda weligay ma maqal marka aad marayso xaafad ku taalla magaalada Muqdisho iyo goob ganacsi oo ka furan gurigan waxaa iska leh Khadiija Macalin iyo Dalaayo Xaaji. maanta waxaad maqlaysaa marka aad Muqdisho marayso gurigan waxaa laga leeyahay guriga Xasan Sheekh, ganacsigan waxaa laga leeyahay guriga Xasan Sheekh. iyaba waa nasiib darre. ruux kasta ee aaminsan in mar kale fursad loo siiyo hanaankan guul daraystay
guuldarrada Soomaaliya u horseeday waxaan leeyahay caawa iimaanka Ilaahay ha geliyo waxa waajib naga saaran yahay inaan shacbiga Soomaaliyeed u tilmaamno dariiqa ugu habboon ee guul iyo gobonnimo ay ku gaari lahaayeen suurtagal ma aha mana yeelayno shacbiga Soomaaliyeedna ma yeeli doonaan in ay aqbalaan nidaam faasid ah oo fashil u horseeday shacbiga Soomaaliyeed waxaan rajo ka qabaa in shacbiga Soomaaliyeed wakiiladoodu ay cod ka siin doonaan hogaamiyaha ay isleeyihiin waa ugu mudan yahay ama guul ayuu u horseedi karaa shacbiga Soomaaliyeed dhaliilo waa jiraan mar haddii la diiday muddadii ay haysteen kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed in lagu dhexsaxo ilama aha inay jirto hawl markii hore aadan qayb ka ahayn dhammaadkeeda inaad qayb ka noqotaan ruux kasta maankiisa iyo caqligiisa waxaa ku jirta sidii aan ugu noolaan lahayn sida aadanaha intiisa kale ama adduunka intiisa kale ay u nool yihiin oo kale ruux kastaana uu heli lahaa sidii mustaqbal iyo ayatin wanaagsan ubadkiisa ay u heli lahaayeen waxaan rajaynayaa toddobaadyada iyo maalmaha soo socda inta laga gaarayo isbedel ka hana qaada mar kale jamhuuriyadda Soomaaliya idin ballan qaadaya inaan habeen ama labadii habeenba mar soo gali doono qadka si aan ula socodsiiyo waxa ka jira hadalkaygu kaftan ma aha waa og yihiin hogaamiyaasha fashilmay toddobaadyadii la soo dhaafay qayladaan ayaa ka timid mid ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya waxaad la socotaan tartankii u galay ama uu galay shacbiga inuu gudoomiye ku xigeen golaha shacbiga qaranka ka noqdo hogaamiyaha ruuxiga ah ee 4 sanadood ee la soo dhaafay Soomaaliya wax ka maamulayay iyo guuldarrada saddexaad ee shacbigu ay filayaan waxay tahay midda soo socota ee Xasan Sheekh waxaan rajaynayaa laakiin ama jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo caawa sidii sharafta lahayd ee shalay loogu wareejiyay ma u wareejin doonaa khudbad noocee ah ayuu ka jeedin doonaa golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo aqalka sare maalinta ay doorasho dhacdo looga adkaado hay'adda ugu sarreysa jamhuuriyadda Soomaaliya ee madaxweynenimo wixii su'aal waxaan jecelahay inaan ka jawaabo idinkoo aad iyo aad u mahadsan haddii wax su'aala aysan jirin waxaan jeclaan lahaa inaan si kal iyo laaba mar kale u salaamo ama idin salaamo meel kastoo aad adduunka ka joogtaan waxaa idin saaran mas'uuliyad gudashadeedu ay laga maarmaan tahay waxaan idin xusuusinayaa caawa Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa ee maamula jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu Soomaaliya maamulayay in ka badan rubac ama ku dhow rubac qarni marka 100 sanadood afar loo waxaan rajaynayaa muhiimadda ay leedahay in aad garataan ma jirto cid xoog lagu haysan karo ma jirto hogaamiye xoog ku haysan kara shacbiga Soomaaliya waxay la dagaalameen xukuumad military ah waxay iska dulqaadeen xukuumad military ah waxay la dagaalameen hogaamiye kooxeedyadii diidanaa hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya koox maxay ahayd aan hub haysanin taladana kaligood aan ka go'in uma maleynaya in shacbiga Soomaaliyeed ay markan dhageysan doonaan Saciid Cali Sow haddii ay jirto wax su'aalo waa kaaga jawaabaya waxaan rajaynayaa inay weli jiraan dad Soomaaliyeed oo damiirkoodu nool yahay
diyaar u ah inay ka qayb galaan halganka loogu jiro badbaadinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan horay shacbiga Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha guuldareystay ee hadda jira ugu sheegay inaanan wax xil iyo xoolo ah ka doonaynin, laakiin waajibka ay saaran uu yahay u halganka sidii Soomaaliya looga xoreyn lahaa burcadda iyo qowleysatada boobaysay 4 sanadood ee la soo dhaafay wixii shacbiga Soomaaliyeed ay lahaayeen. سعيد سؤال في عن أيادي ويديس وحن جعلها أديكو جوجا نروي إن كان جواب سببها يعني نتيا غير يجودهان هو جامياشة الصومالية هردن كوجر سيدي لو بدبادين لها شعبك الصوماليات جارهان مدحوني هراء دولتي كمل جار كهيدي جمهورية الصومالية وشعبك الصومالية ظهر سيدي هو جامياشي أما هو جامي كوحدية دي هيستي مجال مقدسة إن لقى سعره وحي شعبك استجمع قاتك عيان كهردو لانكي عيدمada إثيوبيا أما سو galitaanki ciidamada Itoobiya in magaalada Muqdisho iyo deegaano ka baxsan ba ay nabad haayeen kadib duulaanki Itoobiya iyo soo galitaanki dawladii ku meel gaarka ahayd madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed dagaalo qaraar oo ka dhacay magaalada Muqdisho mar kale inta badan 3 meelood laba meel ka badan waxa magaalada Muqdisho maamulayay dhiigmiiratada ama dhigyacabka kooxda al-shabaab dagaalkii lala galayna waa looga guuleystay isagaana horjooga ka ahaa. Soomaaliya wuxuu ka saaray hanaankii kumeel gaarka ahaa wuxuu ku wareejiyay habeenkii doorashada ay dhacaysay oo anigu goobjoog ka ahaa oo ku beegan 10kii bishii September 2012 hanaan sugan ama xasiloon ama dawladnimo oo jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay. nasiib darro doorashadu waxay ahayd ma ahayn yaa wax ka qaban kara xaaladda ay maanta shacbiga Soomaaliyeed ku sugan yihiin, laakiin waxay ahayd yaa wax ka qaban yaa danteeda fulin kara. waxaan ka mid ahaa dadkii diiday ama aqbali waayay wixii macaamilha ee dhexmari lahaa shakhsiyaad. waxaan shirib ku sheegay in shaqadii ay shaxaadku bedeleen. suurtagal ma aha dhacdooyinka saxiixa ee magaalada Muqdisho ka soconaya habeenadii la soo dhaafay istaaga ayaa waagu ugu baryay. waxaa jira kala shaki fara badan. caawa haddaad i rumaynaysaan ma jirto cid horay ula joogtay oo caawa madaxtooyada joogta. dhammaantood wixii xildhibaan ahaa ama damiirkoodu weli uu nool yahay waxay halgan ugu jiraan kulamo xiriir aan la leeyihiin musharaxiinta si ay marka hore u dhageystaan waxa ay doonayaan Soomaaliya inay ka qabtaan. waxaan rajaynayaa waqtiga oo noo kala duwan dartiis waxaan u mahad celinayaa intii ay suurtagalka u noqotay inay sida tooska ah igala socdaan bartan aan Facebook ku leeyahay, maadaama aysan jirin wax su'aal ah oo aan isleeyahay waa lagu weydiinayaa. waxaan jeclaan lahaa inaan idin mahad celiyo. waa Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis xildhibaan oo idin leh tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan. waa idin salaamay. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan idin leeyahay mar kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan.